دان نبدو ويننا قعناها اللابن ماينو هدي قرقر لكينو يا هدي هرم عد لكينو أنقو أنت كعب سماينو halkan oo ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa ka dhacay barnaamij isku jira nabadeen iyo waliba taageerada la taageerayay wasiirka amniga Axmed Macali Fiqi oo dhawaan sheegay inuu iska casili doono xilka wasiirka amniga oo uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor dadka ka soo qayb galay halkan dhamaantooda waxa ay sheegeen inay u baahan yihiin nabad isla markaana la joojiyo ciidamada ay sheegeen in lagu daabulayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ciidamada ayay dadka shacabka waxay sheegeen inay weerar ku yihiin degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ay dhawaan la wareegeen ciidamada hubeysan السنة والجماعة waxaana dadkii halkan ka soo qayb galay hadaladoodii kamid ahaa madaxweynaha xilku ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahna musharax madaxweyne waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo madaxweyne gobolkan waa gobolkii lagu soo dhaweeyay culimadiinka dhalinyarada hooyooyinka odayaasha aqoon-yahanada dhammaan waa meeshii lagu soo dhaweeyay Dhuusamareeb Gurceel waa meeshaad lugta ku martay adoo lugaynaya aad lugta ku martay xagga amniga markii la yiraahdo amnigaasu seefow ahay waad ka warqabtay indhahagaad ku aragtay wax lagaaga sheekeynaya ma ahayn ra'iisul wasaarihi markaas dawladda federaalka ayaa lagu soo dhaweeyay aqoon-yahanadii ayaa lagu soo dhaweeyay xildhibaanadii ayaa lagu soo dhaweeyay waa meeshaad lugta ku martay halkaan iyo balanbal iyo caabud waaq iyo intii ka dhaxayda Dhuusamareeb intaas aad ku soo martay lugtay ahayd wixii aad ku aragtayna isma bedelin sidii ayaa maanta hadaad mar labaad madaxweyne isu soo sharaxdo ummadda joogta inay ku doorato diyaar ay u tahay ummadii ku dooran lahayd hadda ummadda halkan isu soo baxday bal waan ku su'aalayaa ma waxaad ku qancinaysaa inaad u soo rarto ciidamo gumaada ma waxaad u soo raraysaa nabad iyo wanaag iyo inaad mas'uuliyad mar labaad u qabato miyaad u soo raree u dirayaa madaxweyne naga jooji ciidamada aad nagu daabulayso sunna wal jamaaca waa tii ku soo dhaweysay waa tii gogasha ku fidisay waa tii isugu keentay maxay ahayd gobolka Galgaduud ee dawladda daafaheeda kala gedisan marka waxaan leenahay wax tagay tigsan leh hadda maanta la joogaa naga jooji ciidamada aad nagu soo daabulayda madaxweyne gobolada dhexe maamulkeeda ka tirsanaa Galmudug oo shaatigiisa ka caynsado yiri dhooqadan alla ilaahay lugaha la gelin hadda waa mahadsan yahay sida wasiirka amniga maadaama xaaladdu ay meel khatar ka dagayso ninkaasi waa mahadsan yahay shaatigiisa uu ka dhowrtay waxaan rabnaa dawladda sidaan ugu lisnay inay noogu hambaydo federaalka gobolkan ku soo dhaweynaa iyadoo nabada nin baa nin hal lisay baa leeyahay markaas oo toobtihii dhama ka dhameeyay war maxaa dhacay maya waa dhamaystay buu yiri wixii dhamaa walle saan kugu lisay inaad igu hambayn buu yiri madaxweynaha gobolka nabadda aan ku soo dhaweynay asaga Soomaaliya mas'uul ka ah al-sunna wal jamaaca shacabka ka mid tahay mas'uuliyaddu madaxweynaha saaranta Soomaaliya ha ka shaqeeyo xalka Soomaaliya waa kala shaqeynaynaa waxaad ka xirtaan hooyo dhibaataysan waxaad ka xirtaan qof xanuunsan hadii maanta uu dayacaad u dhinta ah ilaa la yiraahdo 63 kiiloomitir la sii wado Dhuusamareeb hal la geeyo ma ogtaa qofkaas hadii inta la sii wado oo dhinto in adiga aad mas'uul ka tahay madaxweyne ma ogtaa ra'iisul wasaare inaad mas'uul ka tahay aeroboorka bifadlikum una qabata aad saarteen ka qaada uma safurna aeroboorku inuu ka soo dago al-sunna wal jamaaca inuu ka soo dagto dawlad inay ka soo dagto shakhsiyaad kale wuxuu u furan yahay shacab weynaha Soomaaliyeed ee gobolada dhexe awaaye ma tiraadaay madaxweyne waxaan ka doonaynay hooyooyinkii iyo aabooyinkii oo yaayay ma tiraayna madaxweyne caruurtii noo keeno iyaan doonaynay laakiin inuu dagaal noogu daba mariyo iyadoo awlaadanadii maqanta ooyayno aabe hooyo inuu dalka ka qaaday haddana uu dagaal u soo daba mariyo madaxweyne ka doonaynaa nabadaas aan ku baaqayna cabsiino ma geeyno cabsamayno ilaahay baan ka cabsanaa ibn aadan ka cabsamayno hadana reer Gurceel amaana ahsuno ilaahi weynaayo na abuurtayaan ka cabsanayno qof ibn aadan horta ka cabsamayno ilaahay baana nagu filan waxaan marka idin sheegaynaa meel waa ka eheb oo anagu dagaal ma rabno nabadaan rabnaa warka dadka waad maqlaysaan dhayalna naguma aha haddaan nabad weynana haddii sidii aan isu difaaci karnaan isu difaacayna oo gacnaha laaba mayno laakiin nabadan ku dhawaaqayna cabsiyuna noo geymayso waxaan marka aan idin sheegaynaa waa ma dabada u sheegaynaa ma daaqalka u sheegaynaa maamulada madaxweynayaalka oo adigu maaragtay dawladda
iyo mas-uuliyiinteeda meel kastoo joogaan annagu nabadaan ku baaqnay haddaan nabadu weynana gacnaha laaban mayno haddii gorgor la keeno iyo haddii haramcad la keeno annagu intaasoo dhan ku cabsan mayno cabdinuur ciise qalamad warbaahinta radio gurceel